saldhigga ciidamada Mareykanka ee Djibouti ayaa la gelinayaa xaalad caafimaad oo degdeg ah oo looga gol leeyahay taxadirka kadib markii ay sare u kacday kiisaska caabuqa COVID-19. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee howlgalka geeska Afrika Michael Tronel ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan taxadirka ah ay siinayso awood dheeraad ah oo uu kula tacaalayo faafitaanka caabuqa COVID-19. La dagaalanka COVID-19 waa ahmiyadda koowaad waxa sida yiri Michael ku dhawaaqida xaaladda caafimaad ee degdegga ah waxa ay ciidamada iyo kuwa dalka martigelinayaba ka dhigaysaa kuwa caafimaad qaba. Bayaanka laguma sheegin wax kiis ah oo COVID-19 oo laga helay ciidamada Mareykanka iyo shaqaalaha rayidka ah ee ku sugan dalkaasi Djibouti. Ciidamada Mareykanka ayaa Djibouti waxa ay ku leeyihiin laba saldhig oo waaweyn. Djibouti oo ah halka uu ku yaalo marinka muhiimka ah ee laga galo badda ayaa waxa lagu duwaan gelinayaa 985 kiis oo COVID-19 ah, taasi oo 400 tiro kor u dhaafaysa toddobaadkii la soo dhaafay. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa xaqiijisay 5900 oo kiis oo COVID-19 oo laga helay ciidamadaasi Mareykanka, shaqaalaha rayidka ah iyo qoysaskooda ku kala sugan caalamka oo dhan iyo 25 dhimasho. Waa Xamsada Baare, telefishinka caalamiga ee Star TV.